dhalinyarada Soomaaliya ayaa meedkooda waxaa laga helay xuduudda Yemen iyo Sacuudi Arabiya. dhalinyaradu waxay gaarayaan ilaa 12 dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo wiil ah. waxaa kaloo la sheegay 3 gabdhood oo iyagana meedkooda meel kale laga helo oo Yemen kamid ah. sidaa darteed haddii aad taqaanaan waxaan soo gudbinayaa muuqaalada 4 kamid ah dhalinyaradaas. kan koowaad waxa weeye qofkaas weeye haddii aad taqaan ma fadlan waalidkiisa ama eheladiisa ama ila soo xiriira ama gaarsiiya fariintan. kan labaadna kaas weeye qofkaas labaad weeye wiilkaas labaad dhalinyarada. kan saddexaadna kaas weeye waa qofkaas haddii aad taqaano si fiican u fiiri. kan afraadna qofkaas kale weeye. sawirada kale ee meedkana waa soo gudbi doonaa insha Allah. waayahay bishii Ramadaankana waa ay soo gashay oo waxaan rajaynayaa inay 5 bisha tahay ama 6 bisha. waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo dadkii Soomaaliyeed ee lacagaha soo diray ee Solda Safety Network ururka badbaadinta dadka dalka Soomaaliyeed soo taageeray ayaan rabaa inaan idin gudgalo. waxaan ku bilaabayaa gabar leedahay Aamina Xasan oo joogta New Zealand waxay soo dirtay $100. gabar leedahay Shamsa Sheekh oo Canada joogta waxay soo dirtay $100. gabar leedahay Rafiiqa Atiif iyo hooyadu waxay soo direen $135. gabar kale oo la yiraahdo Maryan oo Mareykanka joogta waxay soo dirtay $100. gabar leedahay Xaliima Cabdi Jaamac oo joogta Ingiriiska waxay soo dirtay $1,150. nin leeyahay Nuur Ibrahim wuxuu soo diray $550. saraakiisha ciidanka nabad sugidda waxay soo direen $1,360. saraakiisha booliska waxay soo direen $2,100. saraakiisha ciidanka militariga Soomaaliya waxay soo direen $1,840. waxay codsadeen inaan magacyadooda la sheegin laakiin waxay ballan qaadeen inay bil walba bixin doonaan lacagta donationka ah ama taageerada ah ee hay'adan si aan bal wax u qabanno oo loo dhaqaajiyo. nin kale oo wasiirana maanta wuxuu noo soo diray lacag $1,000 ah ayuu soo diray. waa nin wasiira isna wuxuu yiri aan magacayga la sheegin laakiin lacagta waan bixinayaa. haddaba lacagahan oo dhan weli lama isticmaalin. waxaa jira lacago badan oo xawaalada yaallo oo aan aqoon weynay qofka soo diraha ah ama xawaalad nambarka aan nala soo sheegin. dadka waxaan leenahay noo soo sheega xawaaladahaas xawaalad nambarada haddii aad daawanaysaan. waxa weeye lacagahan la soo diray ee aan hayno $1 lagama isticmaalin. waxay ku wareegaysaa gacanta guddiga maaliyadda qaabilsan ay ku wareegaysaa. hawsha maadaama aniga aan bilaabay waxaan arrintii ku wareejiyey dhalinyarada jaamacadaha ka baxay ee gabdhaha iyo wiilasha ah ee Xamar joogo ee Garawa joogo ee Hargeysa joogo ayaan hawshii ku wareejiyey. iyagaa hawsha inay wadaan xooggeeda laga rabo xagga xafiisyada furaayo. dhalinyarada waxaan leeyahay oo aan kula dardaarmayaa adduunka wax la helo waxa u fiican magac. waxa weeye waxaana soo daashaday dad tuuga ah oo siyaasiyiin sheegto oo magac diimeed wato oo wax walba wato oo dadka xoolahooda intay ka qaataan si faqaldan u isticmaalo. dhalinyarada waxaan leeyahay ha la iska ilaaliyo in lacagahaas dadka ay doonad gareeyeen $1 oo kamid ah aad si qalad u isticmaashaan. haddii si qalad u isticmaashaan waxa weeye waxay la mid tahay hawshii aan wadnay iyo yoolkii aan lahayn oo dhan inay burburtay. waxa weeye qof tuuga ah waxa ma noqoto. waxa weeye tuugadu waxay ka bilaabataa in yar ay ka bilaabataa waxay ku dhamaataa in weyn. saa darteed waxaan leeyahay ha la iska ilaaliyo in lacag $1 ay meel qaldan ku baxdo oo lacagahaasi dadka askarta masaakiinta ah iyo hooyooyinka masaakiinta ah ee qurba joogta ay bixiyeen yaan si qaldan loo isticmaalin. dadka lacagaha bixiyeen waxaan leeyahay waxaan samaynaa system anigu tala galay bal inaan ogaano dhaqaaqa lacagaha qof kasta oo member ama xubin ka ah Solda Safety Network ee lacagaha soo diray waxaan siinaa password iyo username ay ka arki karaan online lacagtii ay bixiyeen meeshay ku taagan tahay haddii wax laga isticmaalay meeshay ku baxday. ayaan samayn doonaa sanad walba dhalinyarada aan hawshan xil saarnay
jaamacadaha dhameeyay ee ardayda ah ee Muqdisho iyo Garowe iyo jooga Kismaayo iyo meel walba jooga iyo Hargeysa waxaan ka rabnaa iyo beledweyne inay xisaab xir keenaan oo wax walba ay si professional ah u soo diyaariyaan waxaan u mahad celinayaa gabdhaha Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed waxaad u malaysaa gurmadka ugu badan xaq walba markay taamaad Soomaaliya waa gabdhaha waxa u taagan waxa hadii kaalmo loo baahdo bixina gabdhaha weeye waxa hadii reer la biilay waa gabdhaha weeye waxa maanta ayuu tagalay naftooda ma taqaanaa waxay ka jecleysteen ku bixinaya qarannimada oo u huraya dadkooda waxa weeye waa gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed xilli adag 25 sano la soo dhaafay waxay ciyaareen door lama iloobaan gabdhuhu waxay noqdeen kuwa aan wixii loo dhiibana xadin waxay hayaanna wax ka bixiya waxa weeye waxa nasiib daran wiilka Soomaaliyeed odayga Soomaaliyeed ee waqtigiisa ku lumiyay maalayacni